بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسر هذا برنامج كان عاوة. waxaan ka hadlay caawa wax ku saabsan barnaamijkeenu barnaamijkii hore inoo soo socday qaybtiisa labaad oo ku saabsanaa ruuga. marka caawa waxaan ka hadlaynaa barkinta. marka wali waxaan hayaa modelkii ruuga modelkiisa wali hayaa barkintii waan garanaysaa waxa way wataa buluuga marka barkinta maxaynu u sameynaa haddii barkintu ku dhaawacanto ama ay ku adoo ciyaarayo balooni oo kale dhaawac ka soo gaadho ay ku dilaacdo maxaa loo baahan yahay maxaynu loo repair karaa mar dib loogu talayaa kolay sawirran tusaya sida loo sameeyo qalliinka sida loo sameeyo arthroscopy-ga hadhow waxaan kaloo qayb kala diyaarinayaa jimicsiga marka la sameeyo imsa week ama imsa waqti intee laga baahan tahay inaad isbaxnaaniso imsa week kadib aad soo noqon kartaa shaqadaadii ama aad caadi gaadhi ku hayn kartaa oo kale shaqadii normal ah aad soo noqonaysaa xilliga jimicsiga ku bilaamayo xilliga aad haynayso xilliga aad soo noqonayso sportski kale inaad balooni ciyaarto kale soo laaban karto waxyaabahaas oo dhan haddii la ka dhigo waxaan ka hadlaynaa qaybta dambe ee qalliinka oo kadib. marka iminka waxa weeye maxaa ay tahay shaqadeedu si iska wada garan waxa weeye waa lafaha labada lafood bay kala ilaalinaysaa oo kale waxayna qaseen hore uga soo hadalay oo kale waxayna u qaybinaysaa miisaankii oo kale haddii qayb ka mid ah tusaale ahaan oo kale haddii arthritis oo kale dadka qaar wuxuu kaga dhac dheeg markuu dheeg kaga dhaco qof waxa weeye way qalloocsanaysaa waxaa qaldamaya alignment mechanical alignment baa qaldamaya toosnaantii ruug oo kale qaldamaya qofkii oo kale wuxuu yeelanayaa inuu ruugihiisa kala qalloocsamaan oo kale qofku wagdalaho kale tusaale ahaan oo kale qof markuu qaado markay ku dhacaan oo kale saa daraadeed waxaa la sameeyaa hadda jeer ruug kala bedelka oo kale mar ruuga la kala bedelayo marna waxaa la bedelaa ruug oo dhammaystiran marna waxaa la bedelaa ruuga qayb ahaan marka ruuga marka dhammaanooda la bedelayo qaybtaas oo dhan waa la wada bedelaya marna waxaa la bedelayaa qayb ahaan oo haaf ahaan marka qaybtaasi qayb ka mid ah ay barkintu ay waxaysanto xanuuna kaaga dhaco markii qof tani waxay aad u sii khusaysaa waxa weeye waa adeer dhalinyarada oo kale ciyaaro kale adeer aad baa waxa ugu badan inay barkintu wax noqoto marka waxyaabaha ugu badan waxa weeye waa xanuun baa dareema qofku xanuun waliba ruugo dhan maaha laakiin qayb ahaan oo kale haddii qaybtan dabadu haddii barkintu ku waxaysato kale waxaad ka dareemtaa xanuunka qaybtaas dabadii haddii qaybta dabadu ay gudaha ku waxaysan qaybtii gudaha ka dareemtaa qayb ahaan oo kale marka ruugiisaas oo leeyahay qayb ahaan ay ka dareemaysaa labada qaybood marba tii ay tahayba hadal jeer waxa kaloo kala jira inuu barar oo kale u imanayaa swelling oo barar oo kale u imanayaa waxaad kaloo dareemaysaa marka ma exercise sameynaysaa markaad salaan ka digaysaa ama salaan fuulayso kale in ruuga iska galo oo qof yiraahdo ruuga waa sixiraya ama isgelaya ama wax dareemayo sanqaro kale ama wax ruugiisa iska dareemayo marka waxa kaloo ka hadlaya markii la sameeyo haddaba in la tolo barkinta hadii jeer waxa weeye waxa ugu fiican intuu cusub yahay nabarku in la tolo oo la repair gareeyo waxa kaloo marka qofka markuu 40 yar oo kale haddii qof age oo qof weyn oo kale yahay loo baahnayn asagoo hor waxa weeye waa dadka weyn waa dee age baa ku dhacay oo lafi iyo barkintii xidhan gooba ku dhacay waxba badan iska bedelay laakiin waxaynu aad u focus kareena waa dadka dhalinyarada ah ama 40 ka yar daada dhexa ah marka hadduu qofku waxaana la hadii jeer la soo waxaya mar handay xajiya hore kale uu go'o ayaduna siracada waxa muhiim marka hore xajiya hore la waxeeyo la talo marka waxay tusayaa arthroscopy sidii loo repair gareynayay imika tusaale ahaan kale waa arthroscopy waxa weeye oo qalinka in laga badgeliso waxa xaaladiisa kale waa kamarad buu wataa marka hareeraha xaggan waa quraantii hareeraha laga geliya marka qofku xataa uma baahna inuu hospitaalka markuu one day ba ku filan bay maalintii marka la sameeyo qaabtii waa qofku bixi karaa oo gurigiisa ku laaban karaa marka waa kan qalliinka nagu sameeyna waa kan arthroscopy aan kamarad gacanta ku haya riigu baan ku tulayno
waxa weeye halkan waxa ku sayaalayo kale isagoo ah waa kan oo kale tusaale ahaan waa tolinkii tolistii barkinta duntan kolley kamarada wax weyn ka dhigaysada laakiin waa doorun lagu toliyey duntii aan ku tolinay waana ku tolay kadibna waa barkinta oo tolisti kadibna waxaa duntii yaraa tala ka muuqata duntii yareedo kale kala ka muuqata marka daawade qaybteena intaas kusoo koobinaya waxaynu ka hadlaynaa qaybaha dambe sidaan hore soo sheegnay jimicsigii wixii la sameynayay waxyaabahaas oo dhan hadday ay dhaawac kaa soo gaadho barkinta waxaa muhiim u ah aad iyo aad muhiim u ah adna qof dhalinyaro ama ee daada dhexe ah inaad dhakhtar la xidhiidho qaybta qaabilsan sports medicine-ka oo arthroscopy qaybahaas oo kale wax lagu sameyn karo ku repair gareyn kara inaad la xidhiidho aad iyo aad muhiim u ah waayo waxaa muhiim u ah weli waad yar tahay mustaqbalkaaga caafimaadkaaga waqtiga dheer waayo ruuga xanuun badan baa saameeya hadday arthritis tahay barkintu hadday waxaysanto waxyaabo badan qofka hadhow waxa laga inuu baahdo ruug kale bedel oo kale laakiin waxaynu aad iyo aad waxaynu casharadan aan u sameeyo kale si aynu waxyaabo badan aynu u yareyno aynu ummadana uga faa'iideyno marka daawada dad barnaamijka cusub tahay subscribe gare una sii share gare si looga faa'iideysto aad iyo aad baad mahadsan tahay